labadii kun iyo 8 waxaan ku noolaa magaalada Hargeysa xaafad kamid baan deganaa subaxya kamid ah iyo waxaan damcay aan magaalada u dhaadhaco dariiqan marayay in magaalada u mar lahaa aan maraya haya yaa waxaan ku soo baxay nin iyo naag is haysto oo naagtu ay kuleetiga ay ninka haysato inagu haddana dad islaam ahaan dad Soomaaliya nahay xeer waxaan u leeyahay labada qof markay haystaan inaan kala saaro oo inaan dhaafin dhexdhexaadino gabadhii iyo wiilkii waan kala furay kalarka haysatay kasii daabaan idhi waan kala dhex galay waan ka sii daayay midba meel baan fadhiisiyay gabadhii baan wareystay waxaan gabadhii bal warna maxaad ninka isku haysaa ay horta anigu nin yahow ninkan waan isqabnaa anigu waxaan hayay horta ka warramay gabar tuugsata waxaan haystay laba gabdhood guri baan deganaa aniga labadeeda gabdhood waan tuugsan jiray maalinta dhan waxaan maqaanaa habeenkii guriga wax kaastan soo halaba waan isu iman jiray barigii dambe yaa waxaan jeclaadabay ninkan oo isna tuugsada isagu gidaar buu seexday gidaar buu seexan jiray isaga iyo laba noo kale yaa gidaar seexda ninkii baa jeclaaday wiila sheekaystay waxaan ku yiri ma istaqanay hore seetimada ma kan meelaha aan ka tuugsan isugu nimaadno baan isku baranay tuugsaasaan isku baranay ninkan waa sheekaystanay waan heshiinay waxaan ku heshiinay anigu laba gabdhood baan haystaa gurina waan haystaa gogoshiilaha weelkiila wax kasta leh adiguna gidaar baad seexataa haddaan iskuursano labadeeda gabdhood iyo anigu wixii aan soo tuugsano annaga iskale adiga maadaama aan gidaar aad jiifto oo hooyigii iyo de wax kasta aan ku hayo biilka Allah bixinaya waxaad ku soo tuugsan yaad bil looga dhigaysaa waayahay biyeesaan ku heshiiyay taas ma aqbalay markaan ninkii sidaas u aqbalay ku heshiiyeen way isku guursanay bay tiri muddo dhowr bilood markaas qabnay biilka uu si fiican u bixin jiray laakiin 3 habeen oo hadda aan laga soo wareeyay 3 habeen wax biil amuuna bixinin bay tiri marka taas ku hasnaa balantii uu ka baxay bay tiri marka hay furo balii fadhibaan ninkii baan ku yiri wariyaaha wad maqasal gabadha ku dacweyso waxna ay sheegayso marxumba mise waxba ka duwan wuxuu tabtaa u sheegtay weeyaan bii maxaa ku kalifan ku hadana balanta ka baxdo wuxuu yiri way ogtahay oo xaas kale yaan leeyahay wadan kale jirabayti yiri oo meesha ay la joogin xaaskaas dhowrkii bilood mar bii yimaada bay gabadhaas ii timaada bii waxaan u sii ururiyay ayaan siyaabiyo ku ambixin jiray gabadhan markaan guursaday waxaan soo helo laban ka dhiga waxna biilka reerkan ka dhiga waxna waan qariyaa biyo reerkii kale u dhiga yaan u qariyaa gabadhii baa markaa maalin dhaweyto ee timi wixii aan u qarin jiray markaasi 3 habeen biilkoodii yaan saaxiibkay uga amaahdoon iri amba bax uga dhigo gaariga yaan ku saaray wixii kan soo urur jirayna reerkii la tagay carruurtu u geemaa idmaan 3 habeen baan deyntii bixinay biilkan baan ku bixinay oo waxaan kala qaybin jiray yaan waayay waxaan ku labadiina yaa u dhaxeeyay oo isku geeyo isku baray oo isku shukaansigii iyo meherkii si nin kale oo shaqadan aan ka shaqeeyo iska tuugsada waxaan ku yiri anigu arintan de waan dhexdhexaadin baan ka ahay gabadhay ninkan horta waad u samri maanta waad sii deyn waan kaxayn ninkii kale u geyn haddii xal lagula yimaadana yaa de halkaa أقبل كل دقن هدي وح كبدنا الوجوي مادنا يا لمبرك يانكو سينه صعب لمبرك يباسي نكي بدلك كي نكي كلا صاحبك ها شقنا يقانين قبلنا سجوري هاوش محكودي يجي حاني قبلنا ينكر ويسهستان قبلنا أنا كسر في جوري جدي بهادي نكي واقنا واقع وضع أرنتا لحقشوا بعربا أرنتا أنا مسؤول كه فرهي قدبي سيدي بقى أنا أرنتي أسرع ولا ويك بعدي يا وحاركي نكي صاحبك قبل لنقاضي هوش قلي باركي waxaan wariyaa ma heshiisay gabadhii wiilkii waan heshiisiyo waxa weey wax khilaaf hadda kama taagna waa iska sidaan ku dhaafay waxay ku heshiiyeen biilkan uu bixiyo maadaama oo reer kale uu meel ka jiro loona yimaado مسجد هينا وياهي خيرنا وتوكسيسنا وكل وليها أكرم ملتشرة جوادنا أي بيل كيس أي كل رشاي بيل كأوصهرة إنه كلا قيبيو أو قيب من خير كلارد يا قيب من خير كوسيو ساس جواد يقبشيبي يا جواد الصراحة حتى نك ما هشناه سلاسة كل هشينا إنه وحلو صهرة إنه خير كان وحلاقة دقو أنا رقصيو ده أشري حتى الله كاسيو حمد مكساس كوجي مرك تصفر بقى لما يستري دنا وهاف وغادي جاي دنا وإبر بكادي جاي يا
يلا قعنتو مرنتهي dad ay maak meel kala dhigayeen hoyaalayay 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 hoye hoyaalayay 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 hoye hoyaalayay 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 hoye waxaan gabaygan u xardhayeen u xabad qadayo isxambar waxaan uga dhigayoon xul uga soo saaray isxisaabi baan idhi intaad maanta xay tahaye xigmad baa ku dheehan oo tixdanu inaga xeeldheere xinjir iyo rabooyiga askumay dhibic yaro xoora xirimaha la yeelay iyo xadan la isaaray حكاوديو إلهي نفتيو حكاوديو إلهي نفتيو إيابي حوغا حكاوديو إلهي نفتيو إيابي حوغا حفيز كاليغا يغو قوديو قوريغان حين طابان حدونتيو ساقال كابيلود حسيقو نوليه anigoo mandheer ku xadfaniyo xolka hooyadaye oo xijaaban oo ruux noqdayo xabiyo dheecan leh markii uu allaha xaakimku uu soo xawiilay tayda ee xoogaa calooshaan ku jiray la iga soo xaadhay ifkana xigtaadu joogta iyo xaxla la ii keenay in xoxdiyo in xiskintiyo horaadada jaqiyo xoxda nasahaye ee xusbaadiyo garaadiyo dadnimo iga dhigay xami xujada markaan fiiriyo xaaladahan muuqda markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaaye markaan eegay xarakaadkan iyo saan xilli u haysto ee nabad ugu xamaasheen arladaasa isaga xaawin iyo qaar masuubadan xadidan lagu xasuuqayo markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaaye markaan eega saan ugu xasilay xalay intaan seexday in xumadlii aroortii haddana xor ugu soo tooso iyo qaar xanuuna wadi jiif xamili waayey markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaaye oo waxaad sharaxaysaa macnaha nimcada ilaahay ina siiyey iyo siduu iyo sida arkin iyo siday dad uga qatan yihiin oo loo arkayo inay ayagu macnaha si gaara ilaahay ugu xarayo ayagu ilaahay si gaara xiriir leeyihiin ilaahay wuu isman yihiin kaa qatan iyo kaa dhigay markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaaye markaan eega siduu ii xafide igu xanaaneeyey ee xayi aragga iyo iga dhigay xubinta muuqaalka iyo qaar xujuuran oo indhaha xub iskaga gaaray markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaaye markaan eega xashe ee sidaan u xaragoonayo in xariiru qaatiyo maryaha xilasho shaygiile iyo qaar dharkaba xoorayo shalay xiiskii waayey markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaaye markaan eega xawligan ku helo erayada ximi iyo weedh kastoo xanaaf laho xaasid kuwii leeyey in xamxamtiyo xanshaashaqaan socdiyo xog igu dhaafaynin iyo maqalka qaar laga xayiray hadalka xataaye markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaaye markaan eega xoog iyo sidaan u xurguflaynayo ee lafahayga laysugu xidhiyo xididadii dhiiga
إن دون ميل حوارها كتاغو أنيغا ونحيقين إن حقر كوغا بودا يو حنانا ضميران إيا قار حمارنا يوي حقاشونا فودي مركزان حمديغا إباهي ديبو حصوص دايين markaanega saan u xallin karo xaaja ii hortaalla ee xaggaygaan ugu fileen xilisu sarayo iyo qaar xukuuman oo muddaba xurta lagu haystay oo xabsigiyo ku jira jeelashoon cidiba xalaynin markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaayeen markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaaye markaanega xoolahaan heliyo xeradan i buuxda in xulquun u haystiyo nimcadan xaydha lagu yeesho in xabxab ugu cashaynaya iyo hilib xawaashaysan iyo qaar xaweeriyoobayoy gaaja xaganayso markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaayeen markaanega xaynaan dhaliyo kooxa sabadeeya markaanega xaynaan dhaliyo kooxa sabadeeya in xaliimiyo hablaha xaani iyo xawa ugu yeedho in xirsi ula ciyaaraya iyo wiilka xaashiyaahe in farxaad ula xareedinaya in ula xadraynayo iyo midaan ku soo xeebaneen xiliya awlaadba on xasan iyo xuseen iyo lahayn ubad u xabeeya ee xululaysiga iyo ku nool xaafad reer kalae markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaayeen marmarkaanega saan xaniyo been uga xishoonayo eenu xurmeeya noloshaydaneen xuma u diidayo iyo qaar wixii laga xarimey u xusul dubaya markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaayeen markaanega saan ugu xarbiyo inaan xalaal quuto een xaaraan u nacaye naftana u xakamaynayo iyo qaar xantoobsiga barto ribada xabxabsan markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaayeen markaanega saan xaq u jecliyo xarafka diimeede een rabbi ugu xidhnahayeen ibleesi xodxodanaynin iyo qaar xaqiiqada gafsan oo xadaya shaydaanku markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaayeen markaanega xiisahaan u qabo weli xabiibkeenna ee xubbigiisu ii galeeyan oy xalaantay labtaydu iyo qaar xayaysiis watiyo xeerka gaaladae markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaayeen marxalaaqidan allaha xaakimku kala xuduudeeyey ee xayawaanka iyo aadamahan xad u dhaxaysiiyey ee mid walbaba xuquuqdu lahaa looga dhigay xaadir ee unan xuluufa ugu yeedhan kaloo la xeejinaysaye xujada markaan fiiriyiyo xaaladahan muuqda markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaye markaasaan xamdiga eebbahay dib u xusuustaye